السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhageystayaal Ramadaan Kariim meel kastoo aad daafaca caalamka joogtaan ku soo dhawaada qaybtii lixaad ee sheekadeennii Hadareemin Geerida hadduu eebbo ogolaado waxaad ila socodsiin doontaa anigoo ah Maryam Maxamed Khaliif halkaad nagala socotaanna waa ogaadeen news agency waan gartay kolkiiba waa nafti hore Cabdi Kaafi oo ku luuqeynaya meerisi ay ka mid yihiin mintid waxaan ahaano malkadaan ku kulannaba yaa maali jiray mayalka ugu qabanaba heeskii Cabdi Kaamil Cawaale qorigii intii aan xidhay oo aan degta gashaday ayaan kolkiiba dabka shiday oo aan dabadeed shaah ugu tuuray markuu midkaanaba baylkiisii qabsaday cadayska caleenta iyo sonkortuba ay isku dheeli tiran yihiin ayay naftii nagu soo noqotay fidhfidh aad moodo dhibco roob wejiga nagana isku simay markaas ayay igu soo dhacday ciyaalnimadii sheeko xariir odhan jirtay gaajo ayaa dhaar ku martay inay dadka gam ka dhigi kolkaas ayuu shaah yidhi walle inaad weydayso mooye intaan anigu joogo yaada ruux dilin waa halkii Cabdi Haybe Laambade oo odhan jiray glucose for energy ileen qatin baanu ahayn hal baasta cad ah ayaan dabka saarnay oo aan si fiican ugu cashaynay balse kuma tashanayno inaan casho tan ka dambaysa aanu jidiinka naga marin doono amar eeba mooye cabaar markaanu xaalad caadi ah aan ku sugnayn ayaanu ka war helay Gordon iyo qadaad moodo antoobo quruurax oo jingad korkeeda lagu shubay ma ahee waaba silsilada Greenock jeerka dareenkaagu siduu ahaan lahaa ciidankuna waa uu nagu kala wareegay aniga iyo Cabdi Kaafi degdeg intaanu u boodnay ayaanu difaac u jeedsanay Allahu akbar tayay safgarashada ciidankanaga ayaa kolkiiba dhanka Cabdi aan ka maqlay waaba se koox uu wato Shaafi Istiiliye oo ah taliyaha kooxda ku meel gaadhka ah habase ahaatee waxa igada daran cajaladii xumeedaan Istiiliye maalintii aan barkulanka aan ka hergistay oo iga qaadan doono seen yeela cajaladii kaligeed baa luntay seen uga dhaadhicino rikoodhkii xumaa ee bilaa daboolka ahaa waa kan galka iigu jire maye shuraabka geli haddii uu ku weydiiyana isxanaaji oo waxaad tiraahdaa haasaas weeye ayaan iskula faqay ilaahay muunan isku kaana kashifin uuba iska ilowsan yahay wadnaha ayaan safarta ku hayaa naftii horihii dhaawaca ahaa kurbadiisii waa inaga dhacday kol haddii uu wiilkii yaraa ee ka masta lahaa nala joogo dhakhaatiirta qaybta ninkii ugu cajiibsanaa weeye ciidankaas si xeeladaysan ayaa loo kala dejiyey naftood hurayaal isxilqaamay ayaa shaah iyo casho dabka ugu jira saddex naftii hore oonu u dirsanay sahayna waa inoo yimaadeen waxaanu ku wada faraxsannahay xogaha muhiimka ah waa uuraalada ay gorgor gubtay cadowga tirabeelka ah ee cagta la mariyey jabka daaqata ku gaadhay ciidamada gumaysiga haddaba waxaan arkay wiilkii faxalka ahaa ee noo sheekayn jiray caawa saan ku naqaanay waa uu ka bedelan yahay waa shib oo cidna hadal kuma darsanayo waryaa Axmed yare maxaa ku aamusiyey ayaan kor ugu yidhi markaasuu mid igu yidhi habaarqabihii taani ahaa ayaa ka xanaajiyey oo muxuu ku samay markaa buu igu jawaabay markii aanu soo maraynay dibirka hoose wiilku waa uu dheelalowsanaa oo faraq dhuuban oo aanu ka gudbaynay ayuu ku siibtay naftii huraha oo adkaysanaya ayaa ugu jawaabay waa sahaalo markaas buu shaydaankani wiilka ku dul yidhi war wax yahooni qoodha xumi qoriga jabhadda ha ka jabin kuwa kalena qosol ayay u jiibiyeen waryaa taani hee walaale war abnoos yahowni wiilka maad leeg tahay ayaan kaftan Axmed ku raali gelinayo aan ku canaantay taani markaas buu isna igu soo celiyay maxaajiga Axmed ah ee kutubta ciidanka u mariyo iyo qosolka macalaan ninkii xanaaqsanaa jaanta la waday haddaba markii uu waagu dilaacay aysan weli libdhadu soo bixin ayay noogu yimaad laba kooxood oo ah banduulkii qaybta uu la socdo markaanu qureecanay eenu barqaxigsin la joogo ayay ciidamada la fayliyey 3 fiilo ayaana laga kala dhigay dabadeed waqooyi galbeed ayaana loo dhaqaajiyey waxaana lagu jiraa bisha xagaagu uu ku dhamaado oo ay Soomaalidu u taqaano wararweer bishan oo kale gobolada Soomaalida qaarkood waxaa looga yaqaanaa maalmadoone xilligan oo kale iyadoo roob la helin ayay ma wada geedaha qaarkood soo saaraan ubax iyo caleemo cusub oo loo yaqaano manka waa xilliga ay geeduhu isticmaalaan macdan iyo biyo jirida wixii ugu kaydsanaa inkasta oo la dhibsado fallaadhaha ceedda ee sida tooska dhulka ugu soo dhacayo qaaca iyo kuleylka uumiga ka soo baxaya dhulka haddana jeerahan oo kale waxaa laga rajaynayaa
roob soo degdega oo raxmaanku darafyada daruuraha ku soo shubo dabadeedna lagu raysto. Duhurkii markii la galay ayaan fadhiisanay halkii baana ku karsanay shaah wax cadaysana aan loo ogeyn maxaa yeelay geelashii aaganaga ku sugnaa waa la baajiyey oo dhuug baa looga maro waayey. Galabkii ayaanu caraabo u sii daynay salaadii maqrib ayaanu dhaxda ku tukanay waxaanu sii soconaba caweysinkii kolay tahay ayaanu buur guradeeda ku furanay casho ayaanu ku karsanay kadib markii aanu cashaynay ayaanu guure ugu sii qabanay. Saqdi dhexe maray tahay ayaan degnay saraakiisha ciidanku meel ay sii qorsheeyeen naftood hurayaal loo soocay gaadhka mooyee ciidanka intiisa kale waa ay seexdeen. Haddaba waagii dilaacay cadceedu godka dhinaca kala soo baxday jihada galbeed naga soo galeen ciidamo 2 fiilo ah oo horin dhammaystiran ah kaasi oo watay nafti hure goobe iyadoon cidna ii sheegin hayaan sii ogaa in ciidan kale xilliga quraaca ay nagu soo wajahan yihiin. Caalimul qayb ma sheeganayee waxaan ku qiyaas qaatay giraamka quraaca malahaygu ma fahantay adigu. Waa hagaag dhageystayaal la soco qaybta xigta hadduu eebo ogolaado.